بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada halkan ugbad heelta kuukan weeye oo maanta isku soo noqonay waxyaro gaaba in soo kala dhex galay soo dhawaada asxaabta ugbad heelta kuukan intana deeran hadalkana subscribe iyo like iyo share dadka noogu dirdir asxaabtiina ah waan mahadsantiin maanta waxaan wadaa dacar halkaas waa dacar organic oo gacanta aan ku hayo taa kalena waa huruud sideedii ah oo aan budo ahayn oo geedka laga soo jaray halkaasna waa saliida vitamin E-ga oo maqaarka aad iyo aad ugu wanaagsan oo timaha iyo maqaarka kulli waa wanaagsan tahay marka wixii aan ka samaysanayno balan isla fiirino waa isku shiidina iyagoo dhan waxaan ku diyaarsanaynaa weel yariis ah soo dhawaada asxaabta marka asxaabta ugbad waa soo qaadanaynaa marka sida aan u fiiqayno huruuda sidaas aan dubka uga qaadnay labada xabo hore waan ka soo qaaday marka tan waxaan rabaa inaad tuso huruuda wax qoyan waxaa lagu darsadaa maraqyada waxaa lagu darsadaa caanaha waxaa lagu darsadaa aad iyo aad u fiican tahay huruudu lafahay u fiican tahay meelo badan bay u fiican tahay maqaarkana u fiican tahay dumarkeena hore caadi u marsan jireen marka hadaan ka sheekayno saliida vitamin E-ga la yiraahdo waxay u fiican tahay daamanka waxa madmadowga iyo waxa nabraha yarka ka soo baxay iskiinka aad bay u dhalaalisaa u shaynan garaysaa ilaa 16 saacadood qofka maaragtay shaynan buu jirkiisa noqonayaa cunooyinka laga helo waxaa kamid vitamin A afakaadhada kamid ah bocorka kamid ah biinatka kamid ah loosaska noocyada kala duwan saliidaha cunooyinka lagu karkariyo dhan baa kamid ah spinachka kamid ah nooca almondka la yiraahdo kamid ah broccoliga kamid ah iyo nooc kamid ah kalluunka oo shrimp la yiraahdo oo badda laga helo baa saliida laga helaa saliidu caadi maaha jirkaaga markaa manasa qoraxday kaa difaacaysaa maxaan ku rahdaa daamanka macmadowga leh iyo jirkaaga oo dhan waa antioxidant sumowga iyo maqaarka sunta bay kaa ilaalinaysaa marka waa wax aad iyo aad maaragtay u wanaagsan saliidu ma aha saliid jirkaaga wuxuu ahaanayaa jir qoyan oo aad moodo inuu qoyan yahay oo la qooyay buu noqonayaa markii aad marsatid oo aan u baahnayn inuu kareem dambe la mariyo jirku markuu qalalan yahay waxa la yiraahdaa dehydrate baa la yiraahdaa oo waa jir qalalan markuu qoyana waxa la dhahaa hydrate baa la dhahaa oo waa jir isagii maaragtay oo qoyan oo aan u baahnayn in wax la mariyo marka saliida E-ga iyo saliidin dhuuman wax mucjiso ah weeye oo aan aad iyo aad maaragtay aan jirka uga maarmin weeye dacartu iyadana wax yaab la weeye ama aloe verada jirka qaybta sare oo maqaarka ah ama la yiraahdo qaybta u sareysa maqaarka iyo subcutaneouska meesha buruurta ku jirto bay waxay biyo badan siisaa oo maaragtay 99% jirka biyo badan bay siisaa iyadana waa wada biyaba sidaas oo kale jirka waxay ka dhigtaa jir qoyan oo hydrate ah oo qofku inuu biyo cabi ama uu dufan marsada aad moodaysid maxaan ku raadaayaa jirka qabow bay ka dhigaysaa oo jirka qabow qofku dareemayaa inuu shaynan garaysiin ama wax marsada oo loo maleeyo cudurrada qaarkoodna way ka hortagtaa oo eczema iyo psoriasis cudurka la yiraahdo jirka qalqaleylka ah iyo dildilaacana way ka hortagtaa iskiinka qalalanna way ka hortagtaa dacartu marka wax yaab la weeye iyaduna waana la cunaa waa la cunaa Soomaalidana hore isku daweyn jirtay aabayaasha hooyooyinka waxa arki jiray iyagoo cabo oo isku daweey waxyaalaha la isku daweey kamid tahay marka iska hubi dacarta badanaa qof waxaa jira dad allergic ku ah iska hubi xoogaa jirkaaga meel ka mari marka marisidna hadday kuu shaqaysana arag haddii kalena iska daa ama dhakhtar u tag skinka sensitive-ka inuu wax walba iska tijaabiyaa fiican inuu ku cuntaa daran in maxaan ku rahdaa uu jirkaaga dhibsadaa daran marka dacartu waa wax yaab leh waana wax baxa oo guryaheena haddii lagu beerto caadi inuu ku baxayo weeye huruuda subxaanallah iyadana intaynan u gelin dacarta waxaa lagu darsadaa cunooyinka sidaan sheegnay cabitaanka waa lagu darsadaa ilmuhu oo kale waa kaa diidayaa ilmaha laakiin qofka weyn wuxuu ku darsan karaa cabitaanada buu ku darsan karaa iyo waxyaalo fara badan buu ku darsan karaa xataa salarka caadiga ah jarjaraysa dushaa kaga darsan kartaa sababtoo ah waxa laga helaa 110 vitamin baa kaligeed ku jira baa dheer vitamin B complex oo dhan waa ku dhan yihiin vitamin B complex aad buu ugu dhan yahay waa waxyaab la dacarta iyaduna iyo vitamino kale fara badan huruuda iyaduna dalal badan sida Hindiya oo kale hadda daawadooda koowaad weeye oo xagga cunada iyo xagga ismarinta iyo waxaas maqaarka markaan ka hadlayno cunada waa waxyaab leh
daamanka gaduudka ah dadka waxaan marsado daamanka gaduutay si fiican bay ugu tartaa jeermiska iyo bakteeriyada iyo malxaha wajiga nabraha afka malaxa ku wata aad bay ugu fiican tahay nabraha oo maxaan ku radaa findoobka iyo balaag daamanka ku yaalaan aad u tirtirtaa skiinka darayga iyaduna way qoysaa waxayna ka dhigtaa shining iyo glow bay ka dhigtaa lastig inuu jirku wuxuu u maraynaysaa uu giigsan yahay bay ka dhigaysaa duuduubka bay ka hortagtaa wax yaab la wey skiinka cudurada ku dhaca skin condition oo dhan ama cudurada skin ku dhaco oo dhanna daaway ka tahay sida eczema psoriasis maxaan ku radaa cambaarta waxyaalo fara badan oo cudurada skinka ah bay iyaduna aad iyo aad uga hortagtaa cunooyinkan ku darso maraqada ku darso caanaha ku darso wajiga marso iyadoo orgaaniga iyadoo budo hadaa hubtid oo ah nooca la hubana iyadana waad ku darsan kartaa cunooyinka marka asxaabta ugbaad sida isugu dardarayno baan marka maxaan ku raday aan falankeeda qabanayna iyo qaabkii aan u sameyn lahayn marka saasaan u diirayaa sidaasaan u diirayaa labada gees baa sidaas ka dhahaysaa marka labada gees sidaa ka tiraadid dhexda baa marka sidaas dubka yarka oo kore baa ka qaadaysaa dubka yarka haddii laga qaado waxaa kuusoo baxaya marka wax yar oo maaragtay cad oo ay ku jiraan wax yar oo maxaan ku radaa biyihii ilaahay ugu talagalaan 100% waa biyo baashatan marka waxaa dhexda uga jira oo jeelka ah jeel ama waxa kan haysto oo saa dardareeraya baan ka isticmaalaynaa waa taasaa intaasaan ka isticmaalaynaa soo ma jeedaan si qurux badan tahay intaasa dhexda uga jirta waa shiidaysaa dad baa cabitaan ku darta hindida hadda cabitaan bay ka wada dhigtaan waxaasoo dhan marka waa soo jarjaray soo maaragtaan baaquligaasaan kusoo jarjaray xabadii u dambeysay baan marayaa marka dubkaas waa kaasa waxay ii noqotay intaas baaquliga ku jirtaa bay ii noqotay qiyaas ahaan adi 50 gram waa tahay 50 gram qiyaasti waa tahay marka waan jarjartay oo diyaarsaday kulligeed waxaan ku darsanayaa huruudi marka waa labadaas xabo oo saas intaas leeg weeye oo sulkayaan ka dhaadheerayn oo in yar ah waan jarjarayaa markaan jarjarana waan ku darsanaynaa haddii aan ku darno waxyaalo fara badan oo waxaa jira marka home remedy waxaa kala yiraahdo ama herbalka gurigaaga isaga samaysan kartid talaagada gasho diyaarso inta qadada karsanaysid ama cunada karsanaysid baa wajiga iska marsan kartaa waxaan ku shiidayaa koobka cabitaanka lagu shiida balandarkan ku shiiday wakaa ku shubay halkaa qaado oo vitamin E-ga saliidiisana waan ku daray markii aan shiiday waxaan u diyaarsaday koobkaas yarka caagaas kareen ka dhamaaday waan dhaqay aan soo qalajiyay waa ku shubayaa marka haddii aan ku shubo marka talaagadan gelinayaa waa wax qoyan soo ma jeedaan xabad biyo kuma darin hal xabo biyo kuma darin dacartu iyada 100% biyo ah marka hore waan shiiday markaan shiiday oo marka hore xoogaa way adkaysay ka bacdi way shiidanta sababtoo iyada biyo miiran ah marka sidaasaan waxayna hawsheena aan u diyaarsanay waxaa kale oo jira in aadan faraha aadan gelin markii talaagada ay ku jirto qaadaad saa usoo darsanaysaa in yar qaadada markaa soo darsatid ka bacdi waad jirkaad marsanaysaa faraha haddaad gelisid waxaa laga yaabaa inay urto way uraysaa haddaad faraha gelisid waa taasaa waxaas fiican baan samaysanay oo maasha allah ah oo home remedy ah ama herbal midkii aad doontid jikada markaad joogtidna iska marmarso xilliga qadada xilliga quraacda hadhowna maxaan ku raday waad iska dhaqaysaa haddii lahayd wajigaaga nafaqo ku yeeshay jirkaaga nafaqo ku yeeshay xataa waxaad marsan kartaa dee meelaha kale oo jirku ilaa vitamin E-ga isagoo dhan baa u baahan marka meel kastaa marsan kartaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.